إن شاء الله تعالى مدحنا يا نوفل دونتو dadkii ku habboonaa ee ka jawaab celin lahaa baan u yeernay haddii ahaan lahay odayaasha dhaqanka oo badi khilaafaadyada bulshada Soomaalida meelaha ka jiraan xog ogaal u ah waxaa nala jooga bahda garsoorka dowladgoboleedka Jubbaland waxaa nala jooga haweenkii ururada dhalinyarada waxaa nala jooga ururada ka shaqeeya nabadeynta bulshada wasaaradihii khuseeyay wasaaradda dhalinyarada isboortiga wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka marka waxaan ugu yeernay sekretariyaas waxaan ognahay bariyaha meeshan aan fadhin doono in ay wax nagu tari doonaan wax nagu biirin doonaan waxaan diyaarinaynaa qorshihii dib u heshiisiinta Jubbaland marka muhiim bay noo tahay inaan ogaano khilaafaadyada jira khaasatan Jubbaland hoose ka jira khilaafyadaas markii aan ogaano kadib waxa sababay baan haddana maaragtay ayaan ogaanaynaa oo isla tilmaamaynaa kadibna sidii loo xalin lahaa marka inaad nasiisaan wadda aan ku hagno waxyaalaha khilaafaadka yararka bulshada ka dhex jira kulanka horta sidaas oo daalan doona insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa afartaa beri ee meeshan aan fadhin doono in aad dulqaadataan wax badan ayaa taraysiin qorshahaas asaga ee dambe ee wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii mandate u ah in arrimaha dib u heshiisiinta ay ka howlgasho wayna caawin doonaan aad bayna u caawin doonaan markay maanta xilligiisii munaasabadiisa kusoo aaday waxaan ku jirnaa xilli runtii doorasho xilliga doorashadana waxyaalo badan oo khilaafaadka yaryarka oo sabkalan qoysaska hoosoosa isku haystaan iyo wax kasta way dhacaan marka sidaa darteed waxaan rabaa shirkaan inuu yahay shir muhiim ah oo aan iskugu yimid xilligeedii runtii dadkii u ahaa saaxiibkana hadday tahay dhaqan hadday tahay ururka haweenka civil society-ga cadaaladii dhammaan waxaan filaynay inay fadhiyaan muddada 4 maalmood ee ugu sheegay agaasimaha guud iyo falanqaynteeda runtii waa u wada joogi qofku siyaabo badan buu u jiraa annaga waxaa noogu khilaaf badan oo dhib badan dadka oo masiibooyinka isku haysta marka iyaga ruuxooda xalka in lagu daran rajeynayna insha allah waxyaabaha hadda san gobolka uga warqabno haddeer khilaafyo waaweyn oo qabiilooyin iyo balaayoyin iyo dhibaatooyin badan oo hadda jira ma jiraan wax waa jireen laakiin hadda wixii waa iska dhammaadeen wax kalena inuu abuurmaan ilaahay kama rajeynayno laakiin waxa waaye khilaafku meel kastuu ka jiri karaa laba qof buu ka jiri karaa xaafad buu ka wada jirtaa wada degan buu ka jiri karaa qolo kaloo dhul iyo adduun ka dhexeeya wuu ka jiri karaa marka waxaan u maleynayaa waa un hadda daraasad sidii khilaafkaas waxa jirana loo ogaan lahaa xalla loogu raadi lahaa sidaasaan u qaadanayaa shirku inuu yahay marka waa soo dhaweyneynaa wixii aan ku dari karo fikirkayga ama xogaan haynana diyaar baanu la nahay wixii kaleetana insha waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in aan maanta ka hadlayno xalin khilaafaad iyo sidaan uga gaari lahayn khilaafka jiro xal waara maalmaha soo socda 4 maalmood soo socotay oo loo socon doono
kulankan waxaan rajeynayaa inay soo baxaan wax wanaagsan oo jiha toosan oo khilaafka meeshuu ka yimaaday iyo meeshuu ugu dhammaan karo iyo sida xal looga gaari karo keliya ma aha in laga sameynayo dowladda Jubbaland dowlad goboleedka dowladda xubnaheeda dhan waa laga sameyn doonaa isteedada waana la soo aruurin doonaa hal meel la soo keeni doonaa oo si loo ogaado khilaafka meeshuu ka jiro iyo jihada loo jeedsan karo wax uu ka bilaabo ma daaqsin uu ka bilaabaa ma dhul yari uu ka bilaabaa ma wuxuu ka bilaabaa wax la isku haysto Soomaaliya dad isnacab ma aha waa dadka kaliya salaantooda ku bilaabo nabad qofka amaanta salaantu ku leeyahay sidee tahay haddii ay tiraahdo kuleeyahay nabad adduunka meel ka jirto ma jirto laakiin annagu waxa aan isku haysano waa resource-ga yar wixii aan ugu filnayn iyo haddii aan haysano xataa si aan u maareyno wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta waxay diyaar u tahay wax walba oo garab istaaga wasaaradda jaanka la ee arrimaha gudaha inay ku garab istaagto ha ahaato xag maqaamin ha ahaato xag muxuu ahaa in ay u tagto u raadiso caalamka oo dowladeed khilaaf inuusan jirin meel mujtamaca intaa leeg uu ku nool yahay khilaaf la-aan ma aha laakiin khilaaf siyaasadeed oo hadda aan ognahay ma uu jiro in waxa kale ee khilaafka ee arrimaha bulshada ah ama ha noqoto deegaan iyo daaqsin ama ha noqoto wixii cadaab ceeraadka ahaa ee dadka meel wada degan ka dhici jiray in aan u fadhino maanta inaan xallisano aad bay sharaf loogu tahay waxaan khilaafyadaanada xallisan jirnay annaga oo aan facilitieska maanta aan haysano aan haysan oo geedo hoostoo joogo oo dowlad noo adeegaysa aysan jirin baanu khilaafyadaanada xallisan jirnay ama ha ahaato wixii dowladnimada Soomaaliya ka horeeyay ama ha noqoto intii burburka lagu jiray ee aan systemkan dowladnimadu uusan maaragtay loo bilaabanin waan xallisan jirnay khilaaf la-aanna dadku ma ahaan jirin maanta waxaan haysanaa facilities shaqadiisu waxay tahay ilmahiisma inta xaafad oo ay ahaanayso ma 7 xaafadood bay ahaanaysaa ma 3 bay ahaanaysaa biyaha ayaa ugu saaran nadaafadda ayaa ugu saaran haddana dastuurka markii weliba hadda noqonaya mashruucda noo taala waxaa la yidhi waxa walba oo ku hor imaanaya shareecada islaamka waxba kama jiraan daamiis waxa aynu waxaynayna waa heshiis bulsho oo ku dhisan diintanada iyo xukunkayaga iyo shareecadanada islaamka marka qofka raba laakiin dadka inuu kala fogeeyo dastuur xaaraan iyo kitaab xaaraan waxaasay dadku yidhahdaan waa ummaddii unbaa khilaaf lagu sii kala furaya العرب ما نقول حديث نوع شرع الإسلام كا وحي خلافات يوحنا سوق بسوي الدين تبان غنينا هذا وحياتها كلامته عامل هنا إنه وحنا نسلوه من هنكسر ما يسمى يوجدون وتعزوي برضو هذا ما خلافات كتير إن لا عروش على سوق العافية كنا رسول سكين اللي أما هم قلت الدجال أما هم قلت الضاخزن أما هم قلت الدريج الحرية وبنيها مجالهم عبد يقول أنت بدل ولاتا يا ولاتا مركز تهاي قف كان مركز ولاتا لسيو قف كان ولاتا لسيو dowladdu waxaa laga rabay labada qof walba oo gurigiisa meesha u marlahay wadada ahaan inay baneeyaan soo khilaaf u imaanin oo ninkan kale dhulkiisa uusan u dhexmarin kan kale uusan dhulkiisa u dhexmarin wadadaas marka dhexe cabirkeeda waa inaan adigu wada og tahay anna aan ogahay wadadaas dhexe marka qofkii kusoo xadgudba sidii laga yeeli lahaa ciddii qashinku shubtay sidii laga yeeli lahaa عدة نظيفة لهيد عدة ضيعتين لهيد وحاسب الله شيء سوي بيها عيال كمشى وبيها له سامو العدل هاي كل كان دارسين كان سامو رباق له مرض هو رباق له هاي انت ماشي في الله
geedka la goynayo iyo geedka aan la goynaynin. haddii waxaas dadku aysan xeer iyo waxay isla ogyihiin ayna ka samaysan oo waxyaalaha khilaafka abuuray. maadaama marka hadda bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa Luul Saciid Yuusuf, waxaan ka socdaa ururka haweenka gobolka Jubbada Hoose. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shirkan aad iyo aad u xambaarsan muhiimadda faraha badan oo Soomaalida Jubbaland degan dhammaanteed wax miro dhal ah inuu u yahay aan filayno. dib u heshiisiinta ah, xaaladaha looga hadlayo deegaanka, dib u heshiisiinta, wada noolaashada, walaalnimada looga hadlayo, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waana wax aad iyo aad loo bogaadiyo, aad u fiican, waanan soo dhawaynaynaa. 4 maalin oo socdana waxaan uga qayb qaadanaynaa si aad iyo aad miro dhal u ah oo aan u gaarsiin karno dadka inta ka maqan shirka insha Allah bismillaahi kariim. waxaan u mahadcelinayaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo geliyay juhdi fara badan iyo in ay dadka dib u heshiisiin u sameeyso dhaba ku midoobay mara dhalayna maanta aan u taaganahay mara dhalkiisi. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waana wax aad iyo aad u wanaagsan dadka in markasto la tawsiyo dib u heshiisiinta iyo Soomaalinimada iyo walaalnimada. sidaas baan u soo dhawaynaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi. magacaygu waa jiif caaqil rashiid cumar fayn. anigoo ah meeshan waxaan u nimid aqoon isweydaarsi ku saabsan xallinta khilaafaadka. xallinta khilaafaadku waa howl odayeed, waa howlaha aanu qaabilsiisannahayba bacdamaa odayaashii dalka aan nahay. inaan aqoon isweydaarsano bal sida xallinta khilaafaadka lagu gaari lahaa, ama beelaha ama deegaanka ama dhaqankaba wixii ka hor imaado oo xallin say u xallin lahaayeen yaan isugu nimid halkan aqoonteeda. maamulka Jubbaland ama dowladda Jubbaland ayaa noo soo qalqaalisay inaan iskugu imaano aqoon isweydaarsi. waa muxuu ahaye intii ka qayb qaadatay iyo intii muxuu ahaye howshaa ka qayb qaadatayba waan u mahad celinaynaa.